السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحاب تقييمي بدن ميل كسته أو أدجوكتان وايدين سلامية ابن آدم إسواي الدون أيا كلاجي وقدام بين إله بانو ما هذين أيا إن نصيب ويا شيء إن مركله هرتينا عن سافرست أنا جعلها مقال حيس جارح كل هندونا إن هالكم كله وداعو مقالك عن ربه إن هالكم إذا كله وداعو أيا وحوي هاي أنا جا أو برهب بالشدة جارحان youtube-kii oo aan muddo ka maqnaa daawashadiisa dhaxay haabaya waliba ka raadinaya abdeedadii ugu dambeeyay ayaan waxna ka arkay muuqaal aad ii murugo geliyay kaas oo igu qasbay muddo dheer kadib inaan mar kale hawada ku soo laabto waliba muuqaalkaasi aan idin la wadaago inta aan si kula wadaagin haddii tahay booqashada ugu horeysay marka hore fadlan channelka subscribe saar haddaad nala sii joogtayna waxaan kaa codsanaynaa maadaama muuqaalkan muddo dheer ee ka soo wareegatay inaan youtube muuqaal idin kula wadaago ay suurtagal tahay in muuqaalka hoos u dhac culus oo ku dhaco laakiin waxaan kaga badbaadi karaa adiga oo muuqaalkan la garayso lana wadaagto dhammaan familadaada ku nool dalka Kenya sidaan wada ogsoonahay guud ahaan dalka Kenya Soomaalida ku nool oo annaga ka mid nahay in boqolkiiba 99 guriga ay u joogto gabar shaqaale ah oo ajaanib ah taa oo inta badan qaarkood loo idmado in heer cunno karin iyo gurigaba lagu aaminaa laakiin waxaa jirto dhibaatooyin qarsoon iyo kuwa muuqda oo loo geysto familiadeena Soomaaliyeed gaar ahaan carruurta iyo dhammaan guud ahaanba familka markaas ay u shaqeynayso waxaa jirtay muuqaal baraha bulshada aad saameyn ugu yeeshay ka oo ah gabar shaqaale ah oo famil ka mid ah familiada ku nool dalka Kenya ay guriga u keensadeen in ay guriga uga shaqeyso laakiin waxa ay ku sameynayso ayaa waxay tahay wax maankaaga iyo maskaxdaada aysan qaadan karin waliba maalintii ugu horeysay ee shaqada la keenay taa oo ka yaabin doonto daawashada muuqaalkaas bal marka hore intaan hadal wada gelinba muuqaalkaasi aan isla daawano subhanallah Soomaaliyeey naagtaasi la daawada waxa ay samayn doonto sanjigta oo naag shaqaale ah anaga guryaha ka shaqeeya madowga ah amboyeysada ah jikada ayay ku jirtaa jikada u xiran una ayay karinaysaa weel ayay soo qaadan doontaa weelkaas waa ku qaadaysaa ujeedaan xaggaas ayay saaraday waxay doonaysaa inay weelkaas kaadida ay ku shubtay in ay cunada ku dadho yacni waxa uu samaynayso naagtaas waa xaasinimo waxaan laga yaabaa dabcan cudur inay qabto oo kale isleeda cudurkaas faafi oo dadka gaarsii naagahan badana Soomaalida ay shaqaalayaal u yihiin guryahooda ka shaqeeya naagaha madowga oo gaalada ah Soomaalidan waa iska aaminaan oo cunada iyo wixii lamid ah bay dhahaan shaqooyinka inay qabtaan ay ku aaminaan ahaan qabta naagahana aaminiya madowga oo gaalada ah yacni wax walba ay ka suurtooda waa jiraan kuwa wanaagsan oo aad u wanaagsan balse ma badna daawadaan filaya inaad muuqaalka si wacan aad u daawateen haddaba gabadhan shaqaalaha ayaa waxaa loo idmaday in ay qabsato shaqadii guriga guud ahaan hadday tahay cunno karin hadday tahay alaab hagaajin dhammaan guriga shaqooyinka laga qabtaa laakiin familkaas ayaa marka horeba ka taxadaray kuna sameeyay arrin aysan filanaynin kadib markii ay guriga ku xirteenba CC camera guud ahaan inta ay isleeyihiin shaqada ugu culus ayay ka qabanaysaa gabadha shaqaalaha ah ee guriga la keenay haddaba dhacdadan haddii aad ka mid tahay bulshada Soomaaliyeed ee ku nool dalka Kenya way ku qabsan kartaa waayo guri walba boqolkiiba 99 waxaa joogta gabar shaqaale ka ah ajaanib ah haddii ahaan lahayd Tanzanian iyo haddii ahaan lahayd Ugandes iyo haddii ahaan lahayd isla dadka ku dhashay amba ku dhaqan amba ku nool dalka Kenya taa oo dhibaato noocan oo kala ah adiga muuqaalkan daawanaya ee kugu qabsan karto ka taxadar oo gurigaaga isku day gaar ahaan meelaha aad isleedahay dhibaatada ugu culus ee kaaga imaan kartaa oo ah dhanka cunno karinta oo wax kasta ayaa lagu dari karaa balse CC camerada waxaad ku xirataa haddii ahaanad jikada haddii ahaanad fadhiga iyo dhexda si aad u ogaato dhaqdhaqaaqa iyo badbaadinta ubadkaaga asxaabta waad ku maasantii daawashada muuqaalkan in muddo ah ayaa isugu keen dambeysay oo waqtiga inoo saamixi waayay inaan hortiina soo fariisano waliba aan muuqaalo qurux badan amba kuwa wacyigelin sida noocaan oo kale ah aan halkaan idin kula wadaago ibn aadan isway adduun baa kala geeyay waan caafimaad qabnaa
balaa ma jidho waan filayaa idinkana sidoo kalena caafimaad qabtaan inta xanuunsan allaha caafiyo kaliya muuqaalkan qofka heerkan ila soo gaaray amba waqti xaadirkan ila soo gaaray waxaan ka codsanayaa inuu muuqaalkan laagta la dhaco si muuqaalkan u noqdo mid gaara inta ugu badan bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ku dhaqan dalka Kenya muuqaalkan mid la mid ah maya waxaan idin leeyahay hadda kadib waxaan ahaan doonaa update inta aan u guda galin amba aan u gudbin gabagabada iyo gunaanadka muuqaalka waxaan idin ka codsanayaa inaad igu dhiirigelisaan muuqaalka like saartaan oo aad subscribe saartaan oo aad share gareysaan muuqaalkan mid la mid ah inta ku kulmi doonana